ku soo dhawaada barnaamij xiiso badan oo ku saabsan dalka Finland. dal lagu yaqaan farxad iyo nolol tayo sare leh. Finland waxay caan ku tahay dabeecaddeeda quruxda badan, nidaamkeeda waxbarasho heerka sare ah, iyo bulsho faraxsan oo ku nool nabad iyo xasilooni. barnaamijkan waxaan ku eegaynaa sababta Finland loogu tilmaamo mid ka mid ah dalalka ugu farxadda badan dunida. nala soco si aan u sahamino quruxda iyo sirta farxadda Finland. Finland waxay ku taalaa waqooyiga Yurub, waxaana xuduud la leedahay Ruushka oo bari ka xiga, Sweden oo galbeedka ka beegan, iyo Norway oo waqooyi ka xigta. Finland sidoo kale waxay leedahay xeebta badda Baltic oo dhinaca koonfureed ka tirsan. inkastoo oo Finland ay ku taalo waqooyiga Yurub oo ay daris la tahay Sweden iyo Norway, haddana ka mid ah dalalka Scandinavian-ka. dalka Finland waxaa inta badan loo tixgeliyaa qayb ka mid ah waqooyiga Yurub, laakiin waxaa kala sooca luqadda iyo dhaqanka oo aad ugu dhow dalalka badda Baltic sida Estonia. Finland waxay leedahay luqad u gaar ah oo loo yaqaan Finnish oo aan ka mid ahayn afka lagaga hadlo dalalka Scandinavian-ka oo ay ka mid yihiin Swedish-ka, Norwegian-ka iyo Danish-ka. Finland waxaa soo martay taariikh dheer oo u dhaxaysay xukunkii Sweden iyo Ruushka. Finland waxay ka tirsanaan jirtay boqortooyadii Sweden ilaa qarnigii 19aad. 1809kii markii Ruushku qabsaday Finland waxay noqotay ismaamul gaar ah oo hoostaga Ruushka. Finland waxay si rasmi ah madaxbannaanida u heshay 1917kii, waxaana Finland tan iyo markaas u taagneyd qaran xor ah oo ku dhisan dimuqraadiyad iyo horumar. 1939kii ilaa 1945kii intii lagu jiray dagaalkii labaad ee adduunka, Finland waxay la dagaalantay midowga Soviyeeti waxaana lumisay dhulal ka tirsan bariga dalkaas. 1995kii Finland waxay si rasmi ah ugu biirtay midowga Yurub, waxaana caan ku noqotay nabadda, waxbarashada iyo dimuqraadiyadda. dalka Finland waa mid ka mid ah dalalka ugu ballaaran Yurub, iyadoo la dhul cabirkiisu gaarayo 318,455 kilomitir oo laba jibaaran. inta badan dhulka waxaa daboola harooyin iyo kaymo baaxad leh. Finland waxaa ku nool qiyaastii 5,500,000 oo qof. inkastoo tiradaas yar tahay marka loo eego cabirka dhulka, haddana waa mid ka mid ah dalalka ugu horumarsan caalamka. Finland waxaa leedahay GDP dhan qiyaastii 300 bilyan sida lagu xusay qiimeyntii sanadkii 2023, waxaana qofkii ku soo hagaagaya in ka badan $55,000. celceliska mushaharka shaqaalaha ee Finland waa qiyaastii €3,500 ilaa €4,000 bishii, iyadoo loo yaqaan Finland inay tahay dal ku wanaagsan ilaalinta xuquuqda shaqaalaha. si kastaba ha ahaatee, shaqooyinka xirfadlayaasha sida injineerada, dhakhaatiirta iyo IT-ga waxay heli karaan mushahar ka badan intaas, halka shaqooyinka adeegyada dadweynaha ama ganacsiyada hoose ay ka yar hooseeyaan celceliska. waxbarashada Finland waa mid bilaash ah ilaa heer jaamacadeed, waxaana leedahay nidaam waxbarasho oo loo arko mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan adduunka. Finland waxay xoogga saartaa xoojinta hal-abuurka iyo ka qayb qaadashada ardayda nolosha bulshada. sidoo kale, Finland ayaa si joogto ah loogu magacaabaa dalka uu dadkiisu ugu farxadda badan yahay adduunka, sida lagu baahiyey bogga rasmiga ah ee World Happiness Report oo ay taageereen qaramada midoobay. dalka Finland ayaa sanad kaste tan iyo 2018kii ugu horeeyay liiska dalalka dadkooda ugu farxadda badan yihiin adduunka. qiimeyntan waxaa lagu saleeyaa arrimo ay ka mid yihiin daryeelka bulshada, nolosha dhexdhexaadka ah, xorriyadda shakhsiyaadka, taageerada bulshooyinka iyo is-aaminaadda dadka dhexdiisa. caasimadda Finland waa Helsinki oo ku taalla koonfurta dalka kuna dhow badda Baltic. Helsinki waa xarun dhaqan-dhaqaale iyo siyaasadeed oo muhiim ah, waxaana hoy u tahay in ka badan 600,000 oo qof. Tampere waa caasimad ku-xigeenka Finland, waa magaalo caan ku ah warshadaha iyo hal-abuurka, waxayna hoy u tahay jaamacadaha waaweyn iyo dhaqanka Finland. goobaha caanka ah ee Finland loo dalxiis tago waxaa ka mid ah Suomenlinna oo ah qalcad taariikhi ah oo ku taalla Helsinki. goobaha kale ee dalxiisayaasha soo jiita waxaa ka mid ah Lapland oo ah gobol caan ku ah iftiinka quruxda badan ee Northern Lights. sidoo kale waxaa jira dhaqan cajiib ah oo loo yaqaano sauna, waana qayb muhiim ah oo ka mid ah dhaqanka Finland. sauna waa qol ama dhismo yar oo loo adeegsado kuleylinta jirka iyadoo la adeegsanayo hawo diiran, waxaana la aaminsan yahay inay Finland leedahay kumanaan qolol yaryar ah oo dadweynaha ka dhexeeya.
halka ugu jooga sareysa Finland waa buurta Helti oo dhererkeedu gaadhayo 1340 mitir kuna taala xuduudka Finland iyo Norway. sidoo kale buurta Helti waa goob dalxiis oo caan ah. webiga ugu weyn Finland waa Kemi oo ku yaalla waqooyiga dalkaas, gaar ahaan gobolka Lapland. webigani waa isha ugu weyn ee Finland tamarta korontada ka hesho. Finland waa dal si wanaagsan oo dhaqmo muhaajiriinta, inkastoo uu yahay dal leh sharciyo adag oo la xidhiidha dalku galka. waxaa loo arkaa in ay Finland bixiso taageero iyo adeegyo muhiim ah oo ay ku jiraan barnaamijyo lagu taageero isdhexgalka bulshada iyo helidda waxbarashada iyo shaqooyinka. dalka Finland waa dal leh dabeecado cajiib ah, dhaqan hodan ah iyo nidaamyo bulsho oo heer sare ah. waa dal soo dhoweeya muhaajiriinta kuna caan ah fursadaha waxbarasho iyo horumarinta nolosha.